markii Shahzaad Yunus uu masraxa soo istaagay waxa uu u muuqday mid ay shucuurtiisu kacsan tahay 2 sano ka hor ayay ahayd markii 32 sano jirkan hal abuurka leh ee Ingiriiska u dhashay uu magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka kula kulmay maalgeliyaal heer caalami ah oo uu kala hadlay sidii uu maalgelin uga heli lahaa shirkadiisa Musmaja. We commonly say that Muslims don't date, we marry, and when we're looking to a partner that's waxa uu halkudhig ka dhigtay ereyga ah muslimiintu isma shukaansadaan ee waa isguursanaa. Shahzaad iyo ninka ay ganacsiga bahwadaagta ku yihiin ee Ryan Brody ayaa halkaasi u tagay in ay ka qayb galaan tartan caalami ah oo ay taageerayso shirkadda maalgelinta ee la yiraahdo Silicon Valley. shirkaddan Mareykanka laga leeyahay ayaa taageero dhaqaale siisa dad doonaya in ay fikrad cusub maalgashtaan 13,000 oo codsi oo la mid ah kan Musmaja ayaa loo soo gudbiyay waxaana qof kasta oo codsi wata lagu casuumay in uu qorshihiisa soo bandhigo. markii Shahzaad uu hadalkiisa bilaabay ayaa maalgeliyaashii qosol la dhaceen iyagoo oo la yaaban damaciisa. shirkadiisa Musmaja ayaa markiiba la siiyay lacag gaaraysa 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana ay ka mid noqotay 100 shirkadood ee taageerada la siiyay sanadkii 2017. maanta shirkadiisu waxa ay ka mid tahay kuwa ugu kobaca badan caalamka waxaana iska diiwaan geliyay dad ka badan 1 milyan oo qof oo ku nool UK iyo 90 dal oo kale. Shahzaad waxa uu ka shaqayn jiray bangi ku yaala magaalada London waana uu ku faraxsanaa shaqadiisa balse waxa uu garowsaday in uu jiro suuq bannaan oo ah in uu sameeyo meel ay ku wada xiriiraan muslimiinta guurdoonka ah oo lamaanaha ay doonayaan ay ka xushaan isla bulshada dhexdeeda. waxaan ka fakiray in 2 arrimood midood la helo website ay muslimiinta guurdoonka ah ku wada xiriiraan ama barnaamij app ah oo ballaaran oo lagu hasaawo dhaqankeenana waafaqsan. fikradiisa ah in uu sameeyo barnaamijka Musmaja ayaa ahayd mid uu ku doonayay in uu sameeyo bar online ah oo ay ku wada hadlaan dadka muslimiinta ah ee doonaya inay helaan lamaane ay guursadaan. dabayaaqadii 2013 ayaa Shahzaad waxa uu waayay shaqadiisii wuxuuna ku qasbanaaday in uu sameeyo barnaamijkaas. Shahzaad ayaa daafuray barnaamijka abka ah 2014 balse qaabka suuqgeyntiisa ayaa wax xoogaa yar ka duwanaa barnaamijyada hasaawaha ee waaweyn. bilowga hore waxa adag in aad maamushid ganacsi aad adigu leedahay. Shahzaadna waxa bilowgii hore ku adkaaday qaabkii uu u hirgelin lahaa barnaamijkiisa cusub. sida uu sheegay waxa jirtay mar ay 10 qof oo kaliya ku xirnaayeen barnaamijkiisa Musmaja hase ahaatee markii dambe dadka ku xiran bartiisa ayaa noqday 10 qof. wax yar kadibna dadkii waxa ay bilaabeen in ay Shahzaad uga waramaan sidii ay isku barteen xaasaskooda ama saygooda. markii aan maqlay sheekadii koowaad ee dhab ahaan u dhacday waxaan dareemay in aan guuleystay. Shahzaad ayaa sidaas sheegay. ninka ay ganacsiga bahwadaagta ku yihiin ee Ryan ee abka sameeyay oo 25 sano jir ah ayaa 2016 si rasmi ah ugu soo biiray. iyagoo oo wada jira ayay dib u habeyn ku sameeyeen Musmaja kadib markii ay falcelin ka heleen macaamiishoodii hore. waxa ay ku soo kordhiyeen 22 su'aalood oo ay dadku weydiinayeen sida in qofku uu diinta ku dhaqmo, in uu tukado iyo waxyaabo kale oo macaamiishoodu ay daneynayeen. Musmaj waxa uu xafiiska labaad ku leeyahay Bangladesh waxaana uu ku howlgalaa magaca Freemium. waa barnaamij lacag la'aan ah balse $10 ayaad bishii bixinaysaa haddii aad u baahan tahay in aad aragtid dhammaan xogta la xiriirta dadka kale iyo in ay dad badani arkaan macluumaadka adiga kugu saabsan. shirkadda ayaa sheegaysa in dakhligeeda sanadlaha ah uu haatan yahay 4.5 milyan oo lacagta ganiga ah. Shahzaad ayaa sheegay in dadka sida tooska ah ugu xidhan bartiisa ay gaarayaan 400 oo ah muslimiin aan wali guursan
oo ku kala sugan daafaha caalamka